waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wararka ee dalbile qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona adan madoobe oo walaac xoogan iyo cabsi ka muujiyay joogitaanka ciidanka lafta gareen ee duleedka magaalada Baydhabo taasoo ku tilmaamay inay khatar ku tahay amniga iyo xasiloonida jiritaanka maamulkiisa Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha Puntland oo dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo halkaana ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana safarka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale deegaanada galmudug tababar ugu soo xirayay ciidamadii ugu badnaa oo qayb ka noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhinaca kale filo Soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkeysanaya safarkooda magaalada Gaalkacyo waxaana ay sheegeen in halkaasi uu tagi doono madaxweyne xasan una markaasi la kulmi doono hoggaanka maamulka galmudug ee deegaanadaasi qodobadaas ayaa daawan doontaa inta tobantan aynu ku guda jirno soo dhow daawada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo wahagaaga hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya la sheegay inuu ku soo baxay doorasho qof iyo cod ah Sheekhadan Madoobe ayaa muxawala xoogan ka muujiyay joogitaanka ciidanka lafta gareen ee duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay taasoo ku tilmaamay inay khatar ku tahay amniga iyo xasiloonida isla markaana sidoo kale caqabad ay ku tahay jiritaanka maamulkiisa aadan madoobe waxa uu sheegay in ciidanka lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ay qayb ka qaadan karaan xaaladaha bini'aadanimo ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maadaama ay yihiin ciidamo halkaasi u jooga dagaal iyo sidoo kale colaad ka dhan ah maamulkiisa waxa uu sheegay inaan marnaba markaasi loo dul qaadan karin ciidanka lafta gareen ee duleedka Baydhabo ku sugan isagoo tilmaamay in mar walba xaalad bini'aadanimo oo khatar ah ay ka dhalan karto ciidanka ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee daacadda waa hogaamiyihii sida xoogga xukunka looga tuuray koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo weli ku adkeysanaya inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dhinaca Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo uu ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana socdaalka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan sheekh maxamuud kaas oo isagu ku adkeysanayo inuu tagayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca dowlad goboleedka Galmudug ilka agdhow madaxtooyada Soomaaliya waxa ay sheegeen inuu madaxweyne xasan tagi doono Gaalkacyo laakiin dhaqdhaqaaqyada ciidan ee maamulka Puntland uu ka wado magaaladaasi ayaa abuuray walaac amni oo aad u xoogan iyadoo maamulka Puntland ciidamadii ugu badnaa uu keenay gudaha magaalada Gaalkacyo gaar ahaan waaxiga xaafadda Braxley ee koonfurta magaalada Gaalkacyo Puntland ayaa ku adkeysanaysa inay ka hortagayso socdaalka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee xasan sheekh maxamuud uu ku tagayo magaalada Gaalkacyo taasoo ay ku tilmaameen inay tahay daandaansi iyo sidoo kale xaalad amni oo khatar ah oo madaxweynaha markaasi uu doonayo inuu ka abuuro deegaanada gobolka Mudug Saciid Cabdullaahi Dane ayaa markii uu dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo waxa uu kulamo la yeeshay saraakiisha amniga qaybahooda kala duwan ee gobolka Mudug iyo sidoo kale kan degmada Gaalkacyo iyo maamulka degmada waxaana uu kala hadlay sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale socdaalka xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu ku tago magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiin ka soo kala jeeda labada dhinac iyo sidoo kale isima dhaqan ayaa hanjabaada saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta isku mariyay iyadoo isima dhaqan oo ka soo jeeda dhinaca maamulka galmudug ay ku hanjabeen inay markaasi ka jawaabi doonaan haddii maamulka Puntland uu qaado talaabo lagu carqaladeynayo socdaalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheekh maxamuud ee magaalada Gaalkacyo taasoo ay ku tilmaameen inay kaga jawaabi doonaan dagaal dhameystiran oo maamulka Puntland ay la galaan iyagoo ku hanjabay inay tagi doonaan ilaa magaalooyinka Garowe sidoo kale Boosaaso waxayna ugu baaqeen beelaha ka soo jeeda gobolka Mudug ee maamulka markaasi ee Puntland inay arintaasi ka waantoobaan Saciidna ay markaasi gacmaha qabtaan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheekh maxamuud ee waqtigiisu dhamaaday ayaa deegaanada galmudug gaar ahaan xerada lagu magacaabo Xanaanbuuro waxa uu tababar ugu soo xiraya sida xogaha ay tilmaamayaan ciidamadii ugu badnaa ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug lagu tababaro ciidamadan ayaa lagu qiyaasayaa xogaha markaasi aynu heleen inay sheegayaan inay u dhaxeeyaan 3,000 oo askari ilaa iyo 5,000 oo askari waxaana xogaha kala duwan ay tilmaamayaan in tirada ciidankan ay gaarayso ilaa 5,000 oo askari halka xogo kalena ay tilmaamayaan inay yihiin ilaa 3,000 oo askari ciidamadan tababarka loo soo xiraya ayaa la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan howlgallada iyo sidoo kale dagaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku jirto waxaana ciidankan ay ahaayeen ciidamo markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay si gaar ah loogu diyaariyay deegaanada galmudug galka ciidankan ayaa waxaa si toos ah gacanta ugu hayay taliyaha ciidanka lugta Khalid iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ilaa haddana lama xaqiijin sababta rasmiga ah ee ciidankan markaasi loo diyaarinayay iyo qorshaha markaasi laga leeyahay waxaana xoguhu ay tilmaamayaan in dowladda
dowladda federaalk Soomaaliya ay doonayso in ciidamadan ay ka dhigto kuwo fuliyo howlgallo gaar ah iyo danaha filla Soomaaliya ay ka leedahay hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa u muuqatay in marka ka dambeysay ay dhisayso ciidamo aad u xoogan oo ay doonayso inay ku horumariso dhinacyada amniga. Ila ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya waxay tilmaameen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, isla markaana safarkii madaxweynaha ee Gaalkacyo uu yahay sidii loo qorsheeyay marka uu dhammaado booqashadiisa magaalada Dhuusamareeb ee deegaanada Galmudugna uu uga sii gudbi doono magaalada Gaalkacyo oo uu ka degi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. xilli dowladda Puntland ay si weyn markaasi u diidan tahay socdaalka Xasan Sheekh ee magaalada Gaalkacyo, dhinaca kale maamulka Galmudug iyo Xasan Sheekh Maxamuud kooxdiisa ayaa ku adkeysanaya inay tagaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, taasoo suuragal ay tahay in halkaasi uu ka dhaco iska horimaad iyo dagaal markaasi uu sabab u noqdo Xasan Sheekh Maxamuud socdaalkiisa. Xasan iyo kooxdiisa ayaa sheegay inay tagi doonaan magaalada Gaalkacyo kana go'an tahay sida markaasi ay tilmaameen wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo xubno kale oo ka agdhow madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya. Waxaa lagu tilmaamay tallaabadan inay tahay mid madaxweynaha uu doonayo inuu ku adkaysto go'aankiisa uu ku booqanayo magaalada Gaalkacyo. Guud ahaanba wixii ka soo kordha qodobadan tabinadeena xiga ayaad ku daawan doontaan.